Franco Fontano waa halyeey Talyaani ah oo naftiisa u horay qadiyadda Falastiin. Waxa uu ka dhinac dagaalamayay Falastiiniyiinta isaga oo dagaal kala hortagay Israa'iil bartamihii 70-meeyadii qarnigii la soo dhaafay. Waxa uu geeriyooday isaga oo ku riyoonaya guusha Falastiin. Franco ayaa ku dhashay magaalada Bologna ee waqooyiga Talyaaniga. Isagoo dhalinyaro ah ayuu arrinta Falastiin fagaaraha ka sheegi jiray. noloshiisii wacneed ee Talyaaniga ayuu ka tagay isagoo aaday Lubnaan si uu halkaasi ugu dagaalamo qadiyadda Falastiin. Hantidii uu ka dhaxlay aabihii ayuu gebi ahaan iibiyey, waxaana ugu deeqay qaxootiga Falastiiniyiinta. Gudaha Lubnaan waxaa looga yaqiinay Joseph Paul kadib markii uu ku biiray jabhadda dimuqraadiga ee xoreynta Falastiin. Muddo kadib ayuu islaamay, magaciisana waxa uu bedelay Joseph Ibrahim. Waxa uu khatar ku ahaa bartilmaameedsiga gantaalada Kaatoshia. koonfurta Lubnaan ayuu ka doqayn jiray mar waliba Israa'iil. Muddo badan ayuu u dagaalamayay xoreynta Falastiin ka hor inta uusan u laaban Talyaaniga markaas oo ay muqaawamadu ka baxday Lubnaan 1982. 30 sano kadib ayuu Joseph raadiyey saaxiibadiisii dagaalka. Waxa uu aaday xeryaha qaxootiga Falastiiniyiinta ilaa markii dambe uu la kulmay mid ka mid ah. Waxaana kula kulmay xerada lagu magacaabo Mar Ilyas ee magaalada Beirut. ugu dambayn isla sanadkaasi ayuu dhintay kadib markii maskaxda uu dhiig fadhiistay. Markii uu geeriyooday safaaraddii Talyaaniga ee magaalada Beirut ayaa dalbatay in meydkiisa loo qaado Talyaaniga, laakiin waxay dadku la yaabeen dardaarankiisii ahaa in lagu aaso Falastiin ama xeryaha qaxootiga Shaataad. waxaana lagu aasay qabuuraha shuhadada ee Shatila ee magaalada Beirut. Franco ama Joseph ayaa qoray dardaarankan: waxaan dhiman doonaa Falastiin oo aan xor ahayn, balse carruurtayda iyo kuwa aan awowga u ahay ayaa arki doona Falastiin oo xor ah. intaas kadib dadku waxay ogaan doonaan wixii aan u soo qabtay dhulkan wanaagsan iyo shacabkaas adkaysiga badan.